waxaa maanta lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Garadag maalinta beerista wasaaradda deegaanka iyo horumarinta waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha wasaaradda deegaanka degmada Garadag iyo horumarinta reer miyiga Cabdi Colaad Jaamac xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale iyo maayirka degmada Garadag Mudane Faarax Aadan kuwaas oo dhamaantoodba bulshada ku adkeeyay inay beertaan dhirta kana faa'iideystaan beerista dhirta dhinaca kale iyana waxa goobtaas dhinaca kale waxayna halkaas ka soo qayb galay shacab weyne aad u tiro badan kuwaas oo ka faa'iideysanayay beerashada dhirta waxaana loo bayaamiyay faa'iidada ay dhirtu u leedahay dadka iyo deegaankaba Farxad Cabdi Nuur Farax Burburti Honkebel TV magaalada Garadag